أبتي هه maxaa qoraal ugu geyn waaya abti hooyo waxba ma haysato ari raadsan ilaaliya arigaa sawir aan anaa raaca maalin kasta shaqaalanka shaqaala ka tahay Ha. oo idinka malidin abti ha abana aabuu dhintay ilaa u naxariisto abuu dhisto ii shaqo maysa abti ha dhar bay xafada maydha darbi xafado ma dhaa Ha. oo abti maalin walba ariga adaa la joogo raaca Ha, abti. wallahi run weeyaan bulsho kasta waxay ku xoogaysataa oo horumar ku gaadhaa sida ay isu garab istaagto laakiin mararka qaar waxaan isweydiiyaa maxaynu dadkeenna aan waxba haysan aynu u caawin weynay qofka maanta aan waxba haysan ma aha inuu weligii sida ahaan doono waxaa laga yaabaa inuu yahay qof shaqo raadinaya ama waayey fursad uu nolosha kaga faa'iidaysto oo horumar ku gaaro ama uu xataa yahay qof u baahan keliya qof gacantiisa kor u qaada si uu noloshiisa dib ugu dhiso oo noloshiisa dib ugu qaabeeyo u qurxiyo waxayntu qofka bini aadamka ahi waa imtixaan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaamayo waxaan isweydiiyaa dadkan giftiyada maalin kasta qabiilada ku dira oo u dira dadkan baraha bulshada caanka ka ah qabiil ahaan ama reer ahaan waxaan isweydiiyaa dadkaasi dadkan noloshoodu sidaa tahay maana weli arag mise iimaankooda ayaa daciif ah mise imtixaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaamaya hantidan uu dhiibay in ay sadaqadooda ka baxsadaan iyo wixii aakhiro meel u dhigmi lahaa ay dadkan kaga caawiyaan dadkaasi dadkaa ma arkaan miya maanta haddaad hanti haysato ama aad dhaqaale haysato macnaheedu ma aha inaad weligaa haysan doonto sidaa daraaddeed please and please walaalayaal fadlan aynu hoos u eegno dadka inteenna tabarta daran si aynu u noqonno bulsho guulaysatay waa mahadsantihiin